Bismillahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada wararka caalamka ee degdega ah. Degdega ciidamada Israa'iil oo bilaabay weerarkii dhulka ee ahaa lan wareegga ee marinka isku xira magaalada Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaana muddadii laba bilood kadib oo bilaabay weerarkii dhulka ahaa ee ay ku qaadeen magaalada Gaza iyada oo ay la wareegeen marinka Netsami ama wadada Salaaxudiin ee isku xirta koonfurta iyo waqooyiga Gaza. Waxaana wararku ay ku darayaan habeen hore oo ay Israa'iil bilowday weerarkii ugu cuslaa ee cirka ay ku dileen 400 oo rayid ah oo dadka shacabka ah, intaasoo ay haddana bilowday oo ay dad badan ku dhinteen. Galabta ciidamada dhulka ayaana dagaal dib ugu soo laabtay xagga iyo dhanka kale ee ciidamada Israa'iil ayaana la sheegayaa in ay bartilmaameedsadeen dhismayaal ay qaramada midoobay ay leeyihiin kuna yaala Daare ee Balxan. Falkaasi oo ay u cambaareynayaan kooxaha iska caabinta ah ee dadka Falastiiniyiinta ee dib ugu soo laabtay deegaanadoodii in ay xabadda joojintu jirtay, ayaana Israa'iil ay ku haysataa xasuuq aan la meel dayin iyada oo sii kordhaysa saacad kasta oo khasaarada rayidka ay gaaraya rayidka Gaza, taasoo dhulba laga duqeynayo oo imika ciidamada la geliyay infantry-ga magaalada Gaza oo la doonayo in dhul laga weeraro ilaa berito hore adigu laga dhigo. Marka sidaa iyo nabadgelyo.